السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo video la ii soo diray. gabar baa ii soo dirtay weliba tiri ninka gabadha ceebeynaya ayaanu isku raas nahay, isku qabiil nahay. marka ninkaas waxa weeye waa nin laygu sheegay magaciisa, dadkuna ay lahaayeen videoga markaan dhageystay oo aan dhageysanayay waa dhamaystay videoga. dad baa hoosta kasoo hadhadlayay. wiilkaas waxaa la yiraahdaa Idris Bebe. wiilkaas wuxuu ceebeynayaa gabar dhalinyaro ah, yar walaashiisoo kale ah, ina adeertiis ah. laleeyahay waxaa dhalay daahir calasow, shaydaan calasow baa dhalay baa la yiri. whatever shaydaan calasow uu dhalay gabadhaas waxaa weeye gabar, waxaa weeye caar, waxaa weeye cawro, waxaa weeye maxaan ku irahdaa rag gabadhiis. waa gabar Soomaaliyeed, waxay noqonaysaa hooyo Soomaaliyeed. waa gayaan, waxay gayaan u tahay ragga Soomaaliyeed oo dhan iyo muslinkaba. marka hadday xataa khaldantay gabadhaas oo khalad ay ku dhacday, kii soo bandhigi lahaa ma aha ninkan Idris Bebe la leeyahay. Idris Bebe waa doqon weeye. wuxuu doqon ku yahay ficilkan uu sameeyey. waxaan uu ku kacay waa nin doqon ah baan dhihi karaa. waxa weeye wuxuu u hiilinayaa gabdho, qabiilku inuu basal yahay. wiilka waxaa weeye waa habar gidir, waa cayr. wuxuu leeyahay daahir calasow, shaydaan calasow ayaa hadda ka hor caayay gabdho, laba gabdhood oo meelaha ka hadhadla tiktoka iyo gabdhahaas buu caayay buu yiri. gabdhahaas isagana u hiilinayaa. gabadhiisi sawirkeedii buu keenay. sida la sheegay gabadhu waa asaga dhalay baa la yiri. xaaska gabadha oo daahir calasow magaceeda lagu sheegay Sahra ee Holland la degan caruurta badan u dhashay umay dhalin baa la yiri. waxaa la leeyahay daahir calasowga gabadhan naag kala u dhashay oo gabadhu Nairobi bay joogtaa Afrika. weliba wiilkan Idris Bebe wuxuu ku sii ceebeynayaa reer kale wax loo saaray reerka ayuu ku sii ceebeynayaa. uu leeyahay wiil majeerteena ayaa videoga ii soo diray oo ka soo duubay u siigeynay siigo wax la yiraahdo ma garanayo anigu waxay yihiin. malaha waxa naagaha isqaawiye ma garanayo waxa loo yaqaan siigo. marka ninkan waa doqon. waxa weeye nacaybna uu ku jira. waxaa ku jira maxaan ku irahdaa ii sheeg in uu ruufyaan yahay, uu dadka qabiilada isku diraayo. wuxuu isku dirayaa daahir calasow oo lagu yaqaanay in uu reer ku mamay uu ku waashay reer majeerteen la dhaho, iyo daahir calasow uu isku dirayaa. wuxuu leeyahay wiilkaas majeerteenka abaa soo duubay gabadha qaawan oo keenay. whatever gabadhu ay maxaan ku rahaa uu dhalay daahir calasow waa ognahay dhaqankiisa. garab ma siinayo, mana ku siinayo midaas. gabdhuhu caayaa whatever qabiil kasta ay tahay, xataa hadday ay habar gidir sacadkiisa kuwa uu sheegto ay tahay xataa wuu caayaa. wax uu xeeriya ma laha. marmarka qaarkoodna qabyaalad buu ku dhaqmaa. waa nin aad iyo aad u qabyaalad badan. waa nin wajiyo badan. waa nin ummadda Soomaaliyeed jecel inuu isku diro. waa nin qabiilada isku diro, isku harkeena. marka laakiin Idris Bebe waxaa la yiri waxay isku haystaan hadda ka hor buu wuxuu ku yiri qabiilka uu sheegto oo cayrka uu ka saaray oo wuxuu yiri Idris Bebe waa boon, ma aha qabiilka uu sheeganayo cayrna ma aha buu yiri. de Idris Bebe har uma jiidine waa garac buu lahaa. fiidiyowyadii dib baa u baaray
waaw wax badan ayaa ii soo baxay aniga haddii video la ii soo diro iskama hadlo iskamana cambaareeyo dadka waa raadiyaa fideoyadii hore wixii hore ee la isku qabtay iyo wixii u dhaxeeyay iyo wixii ka horeeyay waxaan hadda arinta hadeer dhacdo waxa keenay wixii ka horeeyay ee keenay sababta ayaan raadiyay hadda ka hor Idris Beebaha waa boom buu yiri ma aha ciduu sheeganayo ma aha cayr buu yiri Daahir Calasow oo soo daawaday isagana waxa kale oo soo daawaday Idris Beebo dhahay waa garac ma aha habar gidir marka har la isuma jiidin biyana la isma siinayn qabow waa la iscaayay de af iscaayayna isma amaanin wax walba wax jira iyo wax been iyo wax runaba waa la isku caayaya marka waxaan se ka xumahay aad iyo aad uga xumahay whatever oo Daahir Calasow ama Shaydaan Calasow uu shaydaan yahay uu gabdhaha caay uu dhaqan xun yahay maanta Idris Beebo waxba ma dhaantid waxaa tahay Daahir Calasow nin gabdhaha caaya ayaa tahay nin gabdhaha cawradooda soo bandhigaa tahay nin gabdhaha fadeexeeyaa tahay nin gabar soo bandhigay baa tahay yar oo dhalinyaro ah oo 15 jir ah naagtaas waa taas qaawan adoo leh oo dadka tusaaya waxaas xaq ma aha diintuna ma qabto dhaqan Soomaaliyeedna ma aha mana lihid dhaqan Soomaaliyeed waayba u soo bandhigaysaa gabadha diinta islaamka ma qabto in aad ceebayso dadka waxaa lagu yiri hal ceeb qofkii astura ilaahay kun ceeb ayuu u asturaa adigana gabar qaawan oo mur iyo gacan ah miskiinad ah dhalinyaro ah aqli ku filan lahayn saad sheegtay 25 ma gaarin baa tiri baad soo bandhigaysaa ood adeer u tahay adeer baa u tahay ama ina adeertaabay noqon kartaa ama waa gabar Soomaaliyeed oo walaasha ah oo dhiigaagi ah oo islaam ah marka intaad u aqli celin lahayd ayaad gabadhii fadeexaynaysaa banaanka soo dhigaysaa ceebaynaysaa حرام والله العظيم حرام aad baa uga xumaaday gabadhan aad isku reerka tihiin aad bay uga xumaatay waxayna tiri aad baa uga xumahay gabar baan ahay bay tiri kor biliseed kaba isma dheeray tiri aniga meesha ma jecli bay tiri inaan ka hadlo mana ihi dadka ka hadla balse waxay tiri message-kan iga gaarsii ii dhibaan dhahay anaa runta u sheegaya xaqa haddii afka laga qabto keliyuhu ka dilaaca waxaa weeye xaqa lama dabooli karo waa in xaqa loo sheega dadkan dhaqankeenu ma aha dhaqan Soomaaliyeed ma aha gabar in sidaa loo galo gabdhaha dhaqanka Soomaaliyeed wax bedelay ma garanayn gabdhaha haddii nin gabari caayo wallahi xaal baa laga qaadi jiray sideed ku cayda waase nin iyadoo qaawan oo mur iyo gacan soo bandhigay gabadhi kuwa kale ay soo hadlayaan stupidiin ah hoosta ka soo hadlayaan waxa iigu daran gabdhaha soo hadlaaya ee ku faraxsan gabadha la caayayo gabadha la ceebaynayo biri adinka idin sugaysaa gabdhow idinka ayaa idin sugaysaa tan continue ay noqonaysaa gabadhaas rag bay ka dhalatay rag bay la dhalatay biri adinkana way idin keenayaan waa la idin keenayaa khalad yaro idinka dhacay ogaada waa la idin keenayaa tan kalena ogaada ninkii aad halow tiraahdaba aad kala hadasho social media Facebook WhatsApp horay ayuu kaamiradiisa duubasho bilaabaya horu kaamiradiisa ka shidanaya be careful waxa weeye adinka dhitada dhigateen adinka idin sugaysa ogaada gabdhaha caayiyo gabadha gabar ina caaydo adoo gabar ah waa wax laga fiican yahay waa doqonnimo waa damiir xumo raggan ha is caayaan waay gabdhaha isugu caayayaan waay gabdhaha maxaa soo dhexgeliyay caayda maxaa ka dhigay gabdhaha waay adinka is caay hadaa rabtaan gabdhaha dhexdeena ka saar ma caayi kartaan gabdhaha waa khalad maxaa keenay idinka is caaya dad aan meesha joogin maxaa keenay gabdhaha in la isku garaaco la isku karbaasho maxaa keenay waa khalad wey
xuquuqda gabdhahaad ku tumanaysaan waa khalad ma fiicna waxaas tan kale ragga hoos ka soo caytamaaya waa istubidiin kale kan soo saarayna ma dhaamo waa laba istubid waa istubidyo wey waxaan u jeeda kuwa soo caytamaaya oo gabadhi caaya naagta jilbaha madow itus ii soo dir isagana waa kuu soo diraya uu leeyahay ceebtiibu sii faafinaya ceebtaada alla ma asturo dheh ma fiicna qofka bili-aadanka inaa ceebtiisa faafisid wax laga fiican yahay weeye walla idris beebo waxaa ku sugaysa nafsi aad guratay ayaa ku sugaysa ogow nafsi aad gurataa ku sugaaye gabar waad dhali doontaa mid baa kula dhalatay mid baa kula ilmo adeer ah ogow dhitadaad dhigato waad helaysaa waa lasoo bandhigi doonaa taas adigay ku sugaysaa waxaan maqlay 100 qiso niman gabdhaha ku mamay oo gabdhaha xumayn jiray oo gabdhaha sasaban jiray oo lacaga siin jiray oo maxaan ku iraahdaa gabdhaha farax xumayn jiray oo wadada xun ku ridi jiray oo wasakh dhex gelin jiray ka faa'iideysan jiray in aakhirkii gabdhahoodii ay dhaleen iyaga dhabarkooda ka soo go'ay hilibkoodii ahaa inay tiyo kale ku dhacday in ay garacyo keeneen ayaa dhacday waa qisooyin dhab ah marka dhitadaad dhigata way ku sugaysaa usha dadka ku garaacday tug kale ku sugaysa adna in lagugu garaaco nafsi baa jira cuqubaa jirta wax fiican ma aha idris beebo waxaa samays aad iyo aad baan uga xumahay gabadha yar ee mustaqbalka leh ee future-ka leh ee adduunkan rajada ka leh in aad ceebayso oo bannaanka soo dhigto oo weliba hoos aad isla sii tihiin habar gidir aad la tahay magacaad la sheeganayso yaa daahir calasow wuxuu kuu dhahay boon baa tahay yaa ayaad qabtaa waxaa weeye qof nasabiyad leh waxaas ma sameeyo malihi dad baa boon ah wax la kala wanaagsan yahay ma jirto dadka Soomaaliyeed isku mid qofkii xun ayaa boon ah koonfurta boon waxaa loogu yaqaana midgaanka ama nasab dhimanka midgaana qabiil ma aha waa shaqo midigmaal wey micnaheedii ayaa la xumeeyey balse waxaa weeye runtii wax fiican ma aad samaynin nasabiyadna ma aha midaan waana kugu cambaaraynayaa dadka caqliga leh cuquusha lehna waa inay tan kugu cambaareeyaan wax fiican ma aha waxaan aad samaysay waa lagaaga aamusa cid soo qaadatay ma jirto ma fiicna dhaqankan hala joojiyo ragow joojiyo gabdhahan aad isku garaacaysaan ood maxaan ku radaa usha isaga dhigaysaan ood isku tooganaysaan ood hubka ka dhiganaysaan joojiya naf idin la mida wey waay adinka iscaaya no gabdhaha in la ceebeeyo no gabdhaha Soomaaliyeed waani salaamaya intaasan ka hadaa stop ilaahayna ka baq idris beebo intaasan kusoo gabagabaynayaa daahir calasowna nafsi baa haya nafsigii uu ka galay gabdhuhu caay jiray ayaa haya hadday gabadhaas uu dhalay balse waa ka xumay maanta in lagu sameeyo gabadhiisa sidaas isaga u turi maayo kaas shaydaan calasow salaam